Albaniaska Tanzania waxaa la ugaarsadaa qeybaha jirkooda, gacmahooda iyo lugahoodana waxaa lagu iibsadaa ilaa iyo $75,000. Bal qiyaas inaad ku dhalatay muuqaal dadka kale ka duwan, laakiin halkii dadka ay ku jeclaan lahaayeen inay kaa cabsadaan. Qaar waxay ku arkaan inaad tahay qof aan caadi ahayn, qaarna waxay ku arkaan dhibaato. tani waa xaqiiqada ay la nool yihiin Albaaniga ku nool Tanzania. Carruur aan waxba samaynin ayaa mararka qaar la kulma takoor, cabsi, xitaa khatar noolaansho ah. laakiin meel qarsoodi ah oo Tanzania ku taala waxaa jira haweeney go'aansatay inaysan indhaha ka qabsanin dhibaatadan. Magaceeduna waa Sister Martha. haweeney hal qof ah oo u noqotay hooyo intaanu carruur ah. markii aan gaaray meesha ay ku nooleen carruurtani, waxa ugu horreysay aan arko ma ahayn murugo. waxaan dhoola caddayn, carruur ciyaaraysa, carruur waxbaranaysa iyo carruur dareemaysa inay ugu dambayn heleen meel ay aaminsan yihiin ay ku noolaan karaan. laakiin gadaasha farxaddani waxaa ku qarsoon sheeko aad u adag. carruur badan waxaa ka tegay qoyskooda, qaar waxaa lagu qasbay inay ka cararaan guryahooda, qaarna waxa ay soo mareen wakhtiyo ilmo yar oo weligood aan la kulmin dhibaatadaas. mid ka mid ah carruurta halkan ku nool ayaa ahayd gabar 19 jir ah. markii aan weydiiyey xiriirka ay la leedahay qoyskeeda, waxay igu jawaabtay, hooyaday waxaan laga yaabaa inay xiriir la leeyahay. waxay igu jawaabtay, hooyaday waxaan la leeyahay xiriir aad iyo aad u wanaagsan, laakiin aabbahay ma aqaano meesha uu joogo. kadib waxay noo sheegtay erey aad u xanuun badan. waxayna tiri, aabbahay wuxuu noo sheegay inuusan mardaba ahayn aabbahayn, wuxuuna rabay inuuna dilo. aad maqasho sheekada sidaana waxaad fahmaysaa sababta ay meeshan ugu baahan tahay qof Sister Martha oo kale ah. laakiin yay tahay Sister Martha? sidee ayay ku bilowday caawinta carruurtan? sheekadeeda iyadoo ma ahayn mid fudud. waxa ay sheegtay inay markii yareed aysan helin aqbalid qoyskeeda, bulshada iyo xitaa iskoolkeeda. waxa ay gaartay meel ay ka quusatay nolosha, laakiin waqti adag kadib waxa ay sheegtay inay heshay rajo cusub. kadibna waxa ay go'aansatay, haddii aan badbaado waxaan caawi doonaa dadka aniga ila mid ah oo sidii kale u dhibaataysan. Sister Martha waxa ay bilowday in ay raadiso dadka Albaniaska ah ee u baahan caawinta. waxayna tagtay guri guri iyadoo raadinaysa qof walba oo Albanias ah si ay uga caawiso iyada. waxay raadisay carruur iyo dad waaweyn oo aan haysanin meel ay degaan. waxayna siisay wax aysan horey weligeed aysan u helin, tusaale guri, cunto, waxbarasho iyo dareen ah in ay yihiin dad qiimo leh. waxay raadisay carruur iyo dad waaweyn oo aan lahayn meel ay aadaan. waxayna siisay wax kasta oo ay hore u helin, sida cunto, guri, waxbarasho iyo dareen ah inay yihiin dad qiimo leh. laakiin nolosha carruurtani weli ma fududa. dad badan oo Albaaniyo ah waxay la kulmaan dhibaatooyin caafimaad sababtoo ah maqaarkooda ayaa u jilicsan qorraxda. kansarka maqaarka ayaa khatar ku ah, ayaa si weyn ugu dhici kara. waxayna u baahan yihiin ilaalin joogto ah sida koofiyad, kareenka qorraxda ka difaaca iyo dareen caafimaad si jirkooda caafimaadkooda ay u ilaaliyaan. markii aan booqday magaalada annagoo la socono qaar ka mid ah carruurta, waxaan aragnay wax muhiim ah. waxay rabaan nolol caadi ah, waxay rabaan inay suuqa tagaan, waxay rabaan in dadka ay la hadlaan, waxay rabaan inaan loo arkin dad kale oo nooc kale ah, waxay rabaan in loo arko sida qof caadi ah. ku maasantahay daawadahayga inaad muuqaalka daawanayso muddo 4 daqiiqo ah. haddii aad ka heshay muuqaalka, fadlan like saar. haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo subscribe dheh janaalka. aan ku laabano sheekadeenna. mid ka mid ah carruurta ayaa sheegay inuu rabo inuu noqdo qareen. midka kalena waxa uu sheegay inuu rabo inuu noqdo dhakhtar. riyooyin wanaagsan ayay leeyihiin dhammaan carruurtani. waxayna rabaan inay u noolaadaan sida carruurta oo kale. waxayna rabaan inay wax bartaan. waxay rabaan inay guulaystaan. waxay rabaan inay samaystaan mustaqbal wanaagsan sida carruurta dhigooda oo kale ah. laakiin wax ugu murugada badan ayaa ah in carruur badan aysan weligood helin fursaddan. qaar waxa ay weli rabaan, laakiin murugta ugu weyn waxay tahay in carruur badan aysan weligood helin fursadahan. qaar waxa ay weli ku nool yihiin cabsi, qaar waxay la kulmaan nacayb, qaar waxay la dagaalamaan fikrado qaldan oo bulshada dhexdeeda ka jira. laakiin Sister Martha waxay isku dayaysaa inay beddesho arrinkaasi.
ayna rabtaa in dadka dunida oo dhan ay fahmaan hal fariin. Dadka Albaaniyowga ah ma ahan dad ka duwan dadka kale, midabkooda iyo maqaarkooda oo keliya ayaa kala duwan, laakiin qalbiyadooda, riyadooda iyo noloshooda waa isku mid. Markii aan dhammaadka safarkan gaaray, waxaan arkay waxaan weligay iloobi doonin. Carruur badan oo horey u dareemaya inay keligood yihiin, hadda waxa ay leeyihiin qoys cusub, waxa ay leeyihiin meel ay ku noolaadaan, waxa ay leeyihiin qof wanaagsan iyaga ama qof iyaga rumaysan. Sister Martha ma dhisin oo keliya guri, waxa ay dhistay meel rajo gelisay dhammaan carruurta Albaaniyoska ah, meel carruurta lagu xusuusiyo inay qiimo leeyihiin. Ugu dambayntii, ilmo kasta oo dunida ku nool wuxuu u baahan yahay in uu helo jacayl, ammaano iyo rajo. Dad badan ayaa dunida ku nool kuwaasi oo la kulma dhibaatooyin aad u fara badan. Mararka qaarna waxay u baahan yihiin ma aha lacag oo keliya, waxay u baahan yihiin qof maqla. Waxay u baahan yihiin qof maqla sheekadooda, qof tusa inay yihiin dad muhiim ah, qof xusuusiya in iyaga ay leeyihiin riyooyin iyo mustaqbal. Haddii aad u malaynayso in sheekooyinka noocaani ay mudan yihiin in la maqlo, fadlan taageera janaalka oo riix subscribe-ka si aan ku soo gaarsiino sheekooyinka kale oo dhabta ah, dad aan caadi ahayn iyo safarina tusaya qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool dunida. Hal subscribe oo aad samayso waxay naga caawinaysaa inaan sii wadno inaan soo gudbino sheekooyinka dadka qalbiyadu taabanaya. Mahadsanediin daawashada ilaa dhammaadka. Waxaan idin rajaynayaa khayr iyo nabad. Subscribe-tiina, like-tiina iyo taageeradiina joogtada ah ayaa sabab u ah inaan janaalkeena kor u kaco. Mahadsanediin.